kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Khaatumo ee Bariga Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta golayaasha ee maamulka iyo wakiilo kala duwan oo ku hadlaya afka beelaha Soomaalida waxaana mas'uuliyiinta golayaasha sare ee dhaqanka iyo waliba siyaasadda ee maamulka Khaatumo ay ugu warbixiyeen dadweynihii kulankaasi isugu yimid safarro ay muddooyinkii dambe ku marayeen qaar ka tirsan wadamada deriska la ah Soomaaliya madaxweyne Cabdinuur Cilmi Qaaji Binde oo ka mid ahaa golaha meertada ee maamulka Khaatumo ayaa ugu horeyn ka warbixiyay qaab dhismeedka maamulka Khaatumo maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay halgankii gumaysiga lagaga saaray mid ka sii weyn bal aynu tagno meesha taariikhda oo aad taqaaniin oo tareex la yiraahdo oo ka bilowday halgankii Soomaaliyeed iyo gobonnimo doonkii meeshii baanu tagnay waa la barinay dibadda iyo gudaba way isaga nimi waa ku heshiinay daawadeed markii aanu heshiinayna dhowr waxyaalood baanu meesha ku soo qaadnay oo aanu Soomaalida u sidnaa sidoo kale waxaa goobtaasi hadallo kala duwan ka jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan golaha 10ka ah ee marjaca siyaasadda oo ay ka mid yihiin Dr. Cabdikariin Xasan Jaamac iyo Professor Cali Khalid Gallayr waxaan aad ugu mahadcelinaynaa jaaliyadda East Africa ee soo abaabushay shirkan quruxda badan runtii hadalka wixii dhuxulka lahaana waa la sheegay odayaalna waa nooga dambayn doonaan laba arrin baan rabaa inaan taabto mid waxa weeye Soomaaliya horumarka ay samaysay sanadihii yaraa la soo dhaafay iyo inay soo muuqato in Soomaaliya ay gaari doonto dawladnimo ka fiican meesha ay joogto deegaanka Khaatumo dad ka soo jeeda waxay si cad u sharxeen hoostan uga xariiqeen maamulka ay doorteen iyo cuqaashooda iyo simadooda iyo siyaasiyiintoodu inay iyagu la iman doonaan dadka matalaya ee u matalaya dastuurka ee u matalaya baarlamaanka ee u matalaya bulshada rayidka ah ee dhan walba iyo meel walba ku matalaya marka hadda islaamo ay caruurta seexinayaan waxa ugu maqaalaha xoogaa ololowaa loo qaadi jiray inay hadda Khaatumo iyo rag Khaatumo kamida ay yiraahdaan ruwaayadayda ku soo socda ee hooyo seexoyeen idin la tagin way cidda ruwaaga iyo cidda maanta adduunku uu fiirinayo ee waxa ka socda hagoogane iyo kalshaale iyo meygaagle iyo sool joogto iyo laascaanood cidda la fiirinaya ee meesha qura ee adduunka maanta xasuuq ka socda ee ceelashii xooluhu ay ka cabilaayeen lagu weerayahay ee lagu gadaaman yahay waa Soomaaliya sanaag iyo cayn mas'uuliyadeedana berri kama baxsan karo Axmed Siilaayo ma oran karo kulankan oo muddo saacadaha soconaya ayaa waxa ayna dhankooda taageerooyin ay u dirayeen maamulka Khaatumo halkaasi ka jeediyay mas'uuliyiin kala duwan oo ku hadlaya afka beelaha Soomaalida Yaasiin Cabdisalaan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa isna waxa uu dhankiisa sheegay in si weyn ay u taageerayaan maamulka Khaatumo State كل خاطر وإلى هاي بان من جروسين كوميسي جرّي كعيي وعلى كنوجي جاي تاريخ ده النوجا لانونا واحد لو كمرها وعلى وطول الله بتريا يقلب كنا جدي واحد بيشوق الجلية والصومالي كله قلتي بالمن شوقي gabagabadii kulanka ayaa waxa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ducanaha ku soo khatimay garaadka guud ee beelaha daga gobolada Sool Sanaag iyo waliba Cayn Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac waxaan kaloo u mahadcelinayaa Soomaalidii kale ee ilaa caadudwaa ilaa xamar aanu ku soo maray ee u taagnaa Soomaalinimada ee lagu soo dhaweynayay Soomaalinimada ee aanu taageeray qabiil jilib iyo reer iyo shakhsi ayay loogu soo dhaweeyeen loogu casumeen loogu marxabeeyeen loogu tilmaameen inay nagu garab taagan yihiin midnimada Soomaaliyeed ee aanu isu taagnay una taaganahay ilaahay waxaan uga baryayaa jaaliyadda Khaatumo State ee East Africa ee hawshan inoo soo qabanqaabisay hooyooyinka gabdhaha wiilasha muraadkooda dhammaan kii caafimaad u yimid kii dhoof u yimid kii waxbarasho u yimid in ilaahay u sahlo ilaahay saasaan idin
idinka baryayaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa midnimadii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed oo wada jira oo magac iyo sharaf leh inuu dib loogu soo cesho tani wixii ka dambeeyay markii la aasaasay maamulka Khartoum State ayaa waxa maamulkaasi intooda badan mas'uuliyiintooda ay safar ku marayeen qaar ka tirsan deegaanada Soomaalida iyo waliba wadamada deriska la waxaana la filayaa wafdidan in sidoo kale ay tagaan magaalada Kampala ee wadanka Uganda si halkaasi kulamo ay kula qaataan jaaliyadda Khartoum State iyo waliba qaybaha kale ee Soomaalida ay halkaasi degan. Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib, Royal TV, Nairobi.